halkani waa Gaacir Media Tube. barnaamijka wixii cusub ee wararka ee Gaacir Media Tube. dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan ku soo dhawaada barnaamijka wixii cusub ee wararka. mar walba waxaan idinkugu soo gudbinaa barnaamijka wixii cusub ee wararka, arrimaha sayniska, teknolojiyadda, difaaca, arrimaha bulshada, siyaasadda, dhaqaalaha iyo wixii lamid ah. haddaba maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa laba qodob ama laba war oo xiiso leh. qodobka koowaad waa 14 dal oo ay ugu horeyso Germany oo samaystay isbahaysi ay kaga soo horjeedaan Ruushka ama isaga difaacayaan waxyeelada gantaalada Ruushka. qodobka labaad, mas'uuliyiinta Ruushka oo sheegay haddii Ukraine ay ku biirto NATO in uu dagaalka saddexaad ee adduunka uu bilaabanayo. dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, intaanan u gudagalin faahfaahinta warbixintaas, fadlan waxaan idinka codsanaynaa share, like iyo follow inaad dhahdaan page-ka iyo channelka Gaacir Media Tube. aan ku bilowno warbixinta. 14 wadan oo dalalka Yurub oo ay ku jirto Germany ayaa ku midoobay sidii ay iskaga difaaci lahaayeen gantaalada Ruushka. dagaalka Ukraine iyo Ruushka oo ay maalmo kooban uga dhiman tahay inay u buuxsanto bishii 8aad tan iyo markii uu bilowday. dagaalkan ayaa waqti kastaba dhacdooyinka ku cusub ee lagu arkayay halkoodii kasii socdaan. haddaba natiijooyinka laga dhaxlay dagaalka Ukraine iyo Ruushka waxaa ka mid ah qiimaha cuntada adduunka iyo shidaalka oo sare u kacay. 4 gobol oo Ukraine lahayd codbixin shacab oo laga qaaday kadibna lagu daray Ruushka. sidoo kale isbahaysiyo diblomaasiyadeed oo cusub iyo dhacdooyin kale. Ruushka ayaa duqeyn ku haya magaalooyinka Ukraine kadib markii maalintii Sabtidii dhaawac loo geystay buundada weyn ee isku xirta gobolka Crimea iyo Ruushka intiisa kale. dhaawac buundada loo geystay Ruushka wuxuu dusha u saaray Ukraine. wakaaladda Reuters ayaa ku warantay in duqeymaha cusub ee Ruushka ku bilaabay ee Ukraine ay bilowdeen kadib in ka badan 14 dal oo ka tirsan Yurub in ay u midoobeen sidii ay magaalooyinkooda ay ugu difaaci lahaayeen waxyeelada gantaalada Ruushka. waxaa la sheegayaa in midowga isbahaysigan ee wadamadani uu hogaamin doona Jarmalka. ujeedada midowga wadamadan ee 14 ka badan ee Yurub ayaa lagu sheegay sidii ay magaalooyinkooda ugu difaaci lahaayeen waxyeelada gantaalada Ruushka, iyadoo wadamadani ku heshiiyeen in ay si qiimo jaban kusoo iibsadaan hubka difaacyada hawada si ay uga hortagaan waxyeelada gantaalada Ruushka. wadamada si ay magaalooyinkooda ugu ilaaliyaan waxyeelada gantaalada Ruushka ayaa waxaa la sheegayaa in wadamadani ay ku heshiiyeen in ay isticmaalaan lidka gantaalada ee difaacyada hawada, kuwaasoo ay soo saaraan wadamada Germany iyo Israa'iil. midowga isbahaysigan cusub ee wadamadan samaystay badankoodu waxay xubno ka yihiin oo ay ka tirsan yihiin ururka isbahaysiga gaashaanbuurta NATO, taasoo la sheegay isbahaysigani cusub in uu yahay mid sii xoojinaya wada shaqayntii hore ee ka dhaxaysay dalalkan. qodobka labaad ee barnaamijka wixii cusub ee wararka ee aan idinkugu soo gudbinayna wuxuu yahay Ukraine haddii ay ku biirto NATO waxaa bilaabanaya dagaalka saddexaad ee adduunka. waxaa sidaa yidhi mas'uuliyiin ka tirsan Ruushka. warbaahinta Reuters ayaa daabacday hanjabaad kasoo yeedhay mas'uul ka tirsan dowladda Ruushka oo uu yidhi haddii Ukraine ay ku biirto NATO inuu bilaabanayo dagaalka saddexaad ee adduunka. mas-uulka ka tirsan golaha amniga Ruushka ayaa sheegay haddii ay Ukraine ku biirto NATO, taas uu hogaaminayo Mareykanka, dagaalka Ukraine inuu isku bedeli doono dagaalka saddexaad ee adduunka. waxaa xusid mudan bishii hore ee Sebtembar markii madaxweynaha Ruushka Mr. Vladimir Putin uu ku dhawaaqay go'aanka 4 gobol ee Ukraine uu ku darsaday uu kaga mid noqday goboladaas inay ka mid noqdaan dalkiisa. kadib isla markiiba inuu Mr. Vladimir Zelensky codsi uu ku codsanayo inuu kaga mid noqdo ururka NATO uu u dirsaday, kaasoo NATO ilaa haddana ay wax jawaab ah aysan siinin. falanqeeyaasha arrimaha juqraafi siyaasadeedka ayaa sheegay codsiga Mr. Zelensky inuu yahay cabsi la soo daratay, taasoo Mr. Zelensky uu ka baqay Ruushku inuu la wada wareego dhulka Ukraine, maadaama labada dal ay isku awood aysan ahayn oo uu Ruushku dhinac walba ka dhisan yahay awoodna leeyahay. xubinnimada Ukraine ee NATO weli waqtigeedu aad buu u fog yahay, sababtoo ah 30 wadan ee xubnaha ka ah NATO waa in ay dhammaantood ogolaanshahooda la helaa ama ay u ogolaadaan. ku-xigeenka golaha amniga Ruushka Mr. Alexander Venediktovin oo u waramayay wakaaladda warbaahinta Ruushka ee loo yaqaano TASS ayaa yidhi sidatan: Kiev si taxadar leh ayay u ogtahay in tallaabooyinka noocan ah
in ay geynayso dagaalka saddexaad ee adduunka. Sidoo kale, saaxiibka Putin ahna xogayaha golaha amniga Nikolai Patrushev ayaa sheegay in uu dareemayo in ay propaganda tahay codsiga Ukraine ee xubinimada NATO. Reer galbeedku way fahansan yihiin waxyeelada ka soo gaari karto codsiga Ukraine ee xubinimada NATO. Mr. Nikolai ayaa yidhi tallaabada noocani ah in ay tahay dabeecad is-halligis ah. Xubnaha NATO laftoodu way fahamsan yihiin. Madaxweyne Putin ayaa marar badan digniin u diray NATO, taas oo uga digay NATO in aysan isku ballaarinin ama NATO in ay joojiso isballaarinta ay ku sameynayso wadamada ka mid ahaan jiray midowga Soviet. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, waxaa intaa inaga barnaamijka wixii cusub ee wararka ee Gaacar Media Tube. Barnaamijkan kan xiga inta aan ku kulmi doono nabadiino.